waa mid ka mid ah caadooyinka ugu xunxun ee burburiya caafimaadka. Sigaarku waa mid ka mid ah sababaha ugu horreeya ee kansarka sababa. Malaha uma baahnid in aan kaaga sheekeeyo waxa uu yahay kansarku. Kaliya waxaa kaaga filan sawirkan oo ah qof qaba cudurka kansarka lafihiisa sida ay u egyihiin. Haddii si aad maanta sigaar cabto, waxaad halis ugu jirtaa inuu kugu dhaco cudurkan dilaaga ah ee la goran og yahay mucjisada qarnigan. 3 meelood meel dadka cudurka kansarka qaba adduunka waxaa ku sababay sigaarka. oo sigaarku waa isha saddexaad ee sababta cudurkan halista badan. Maadada ku jirta sigaarkana ee loo yaqaan nikotiinka waa mid qabatin leh oo haddii aad mar cabto waxa ay kugu sababaysaa in aad mar kale cabto, sidaasna aad ku qabatinto sigaarka. waana sababta dadka sigaarka caba ay xabadba xabad ugu daartaan. Haddaba in aad iska joojiso cabidda sigaarka waxa ay ku horseedi kartaa ama ay ku horseedaysaaba horumar xagga caafimaadka, maalka iyo tayada guud ee noloshaada ah. Dhanka kale, cabiddiisu waa mid ku horseedi karta hoos u dhac dhaqaale, bahdil nololeed iyo cudurro aad marka dambe u dhimato. In aad cabto sigaarka iyo inaad iska dhaafto waxa ay kala yihiin waddo cad iyo waddo mugdi ah oo kugu sii ridaysa gud mugdi ah. Haddaba inaad iska joojiso iyo inaad cudur raadsato adiga ayay kaa go'daa.